السلام عليكم سو dhawaada khiyaaray kulanka loo xiiso badan oo muuqaaladii caafimaadka ee cilmi nafsiga barnaamijkii kala qaybinta ashkhaaста muuqaalkii ka horeeyay waxaan uga soo sheekeynay miisaanka Myers-Briggs marka la eegayo shakhsiyadda INFJ loo yaqaano waa shakhsiyadda ugu naadirsan adduunka oo idil marka la eego bulshadana 1 ilaa 2% ka ah sifada ugu horeysa oo shakhsiyaddaasi leedahay waa introverted ama shakhsiyad xirxiran sifadan shakhsiyaad badan ayaa leh oo miisaanka Myers-Briggs ku dhex jira iyo miisaanka kale oo cilmiga psychology lagu taxliiliyo shakhsiyaadka hadaba waxaan doonaynaa muuqaalkan uga sheekeyno shakhsiyaadka leh sifada introverted-ka ama shakhsiyadda xirxiran waxa ugu horeeya waxa weeye in bulshada fahamka ay ka haystaan in uu aad uga duwan yahay sida ay tahay bulshada inta badan waxay ka haystaan shakhsiyaddan inay tahay shakhsiyad daciifa oo qajilaad badan oo bulshada ka baqda oo leh social anxiety halka aysan saas ahayn oo ah shakhsiyaddan inay leedahay sifooyin iyo tilmaamo cad oo wanaagsan oo dad wanaagsan ay sifaad wanaagsan ay ku dhex jiraan dhinac kalena ceebo ay leeyihiin sida dadka bulshada ay ceebo u leeyihiin bas waxaan rabaa inta aan u gudagelin arrintaas inaan bal faham ka bixiyo horta tilmaam ka bixiyo waxa ay tahay shakhsiyadda horta waxay leeyihiin tilmaamo iyo sifooyin gooni ah oo iyaga ay isku mashquulaan oo nafsadooda ay tarkiiska saaraan afkaarta iyaga ka dhex buuxaysa inay gooni ula baxaan inay jecel yihiin halka inta ay ku mashquuli lahayn oo tarkiis saari lahayn waxyaalaha dibadda ka imaanaya way necab yihiin inay ku dhex milmaan bulshada oo waqti badan ay la qaataan waxay awood ku helaan oo daaqo ku helaan oo xoog ku helaan in ay gooni waqti qaataan oo space helaan ama xuduudooda ay gooni u noqoto sifooyin badan ay leeyihiin sifada ugu horeysa waxa weeye inay qadariyaan ama ixtiraamaan spaceka ama xuduudda dadka kale ay leeyihiin maadaama iyaga ayba jecel yihiin in la ixtiraamo oo waqti la siiyo oo space ay helaan si awood ay usoo helaan waxaa qodobka isagana aadka u muhiimka ay leeyihiin waxa weeye in ay gooni u baxaan oo gooni socod yihiin oo marka intooda arkaysa iyagoo bulshadii markay ku dhex jiraan inay jecel yihiin gooni u baxaan waxaa arkaysa ardayda kale aan dhex gelaynin waqti la qaadanaynin jecel in gooni ahaado sidoo kale waxay leeyihiin dadkan dakaa ama caqli aad u heer sareeya emotional intelligence wax loo yaqaano oo ah qiira garaadka muuqaalo hore ayaan uga soo sheekeynay qiira garaadka ama dakaa alcaadifi dadkan maadaama ay si deeply u fakerayaan si cumqiya u fakerayaan oo waqti nafsadooda la qaadanayaan waxay helaan inay mashaakisha si taxliilina u taxliiliyaan problems ka qabsanaya natiijo wanaagsanna ay keenaan si ay uga fogaadaan inay ka nadaamoodaan ama nadaamo ay la kulmaan waxay jecel yihiin inay fikirkaas iyaga keliya ay ku ahaato oo aysan dadka kale u bixin siraha iyaga ay qaataan inay qumuud galaan inay macnaha oo aysan dadka kale waxyaalaha iyaga goonida u ah aysan dadka kale soo dhex gelin waxay leeyihiin inay dadka dhageystaan oo aad u dhageystaan waxyaalaha sifooyinka wanaagsan oo ay leeyihiin ayay ka mid tahay waa sifo aad u wanaagsan inaad dadka kale dhageysato si ay dadka kale u fahmaan ayay dadka kale waqti u geliyaan inay dhageystaan in ka badan inta iyaga ay hadlayaan maadaama ay yihiin dad degan oo aan degdegin oo ka fiirsada wax tallaabooyinka ay qaadayaan bedel marka la eego dadka kale bulshaawiga ah ay yihiin dad degdega oo aan ka fiirsanin waxyaalaha ay sameynayaan inta badan waxay sameeyaan xiriir kooban ama asxaab kooban ayay leeyihiin asxaabtaasi si hoos oo dhumuc leh ayay isku dhex galaan way ka duwan yihiin inay mana jecla inay si sadixi ah dadka ula dhaqmaan oo ay asxaabtu yihiin si cumqi ayay dadkaas ula dhaqmayaan marka qaybtood ilaa heer ay gaarsiiyaan dadka ehelkooda oo kale heerka ay gaarsiin yihiin dadka ay asxaabta ka dhigtaan ceebaha ay leeyihiin waxa ugu horeeya waxa weeye inaysan ku adag tahay in dad cusub ay bartaan oo asxaab cusub ay samaystaan maadaama ay ka fikirayaan qofkan asxaabta saaxiibka ay ka dhiganayaan waxa ka dambeeya si dhumuc lehna wax walba uga fikirayaan marka way ku adag tahay inay si sahlan saaxiib u samaystaan qodobka labaad isagana waxa weeye dadka kale ayaa waxay ka fahmaan khalad oo maadaama shakhsiyaddan ay leedahay waxyaalaha aan la fahmi karin ay jecel yihiin inay masaaxo gooniya qaataan in ka badan inta ay dadka la qaadanayaan inay iyaga gooni waqtiga u qaataan ay aad u jecel yihiin xuduud inay yeeshaan inay jecel yihiin inaan loo xadgudbin xuduuddaas waxaa ula jeedaa maalan mararka qaybtood waxaa jira dadka markay saaxiibo yihiin waxyaalo badan ayaa ka dhex wadaaga sheekooyin badan bay wadaagaan marka iyaga waxyaalaha iyaga ku saabsan nafsiyaadkooda ma jecla inay qofka kale uu soo dadaqdo ama soo dhex galo oo privacyga ay inta badan aad u jecel yihiin marka taas marka dadka waxay ku keenaysaa inay si khaldan uga fahmaan inay fahmaan dadkan horta ma dad kibir badan baa
dadkan maxay yihiin dad oo ka cabsada bulshada inay dhex galaanba waxaa sifooyinka ay leeyihiin waxay keenaysaa marka in lagu wareero oo la fahmi waayo ama dad qajilaad badan ba waxyaalahaas oo dhan waxay keenaysaa qofka in laga fikiro oo la fahmi waayo qodobka isagana aadka u muhiimka waxa weeye inay ku adag tahay in ay bulshada ama jamaahiirta la hadlaan balse ay haddii qabsato laakiin waxaad arkaysaa inay ka jawaabi karaan intaas oo bulshada la hadli karaan oo aysan cabsi arrintaas ka haysan halka dadka social anxiety-ga ay bataatan ba ay ku adag tahay in ay dadka la hadlaan oo bulshada la hadlaan ay ku adag tahay marka isagana halkay ku kala duwan yihiin way oo lagu kala sooci karo labada dadka kale waxay qodob kale isagana waxa weeye muhiimka waxa weeye dadka kale waxay u saciyaan oo isku dayaan in ay ku tilmaamaan inay waxyaalaha ay ku jiraan مثلا sifooyinka ay leeyihiin oo kale qajalaadan iyo waxaan dadka ka xirxirayaan inay ugu sheekeeyaan inay tahay wax khaldan oo loo baahan inay ka baxaan waxyaalahaas ay tilmaam ka bixiyaan oo dadka ku bixiyaan oo fahamkaas khaldan maadaama ay ka haystaan laakiin ceebaha dadka ay leeyihiin ma aha in wax la xiriira shakhsiyadooda oo ay loo baahan yahay qofka kale inuu fahmo oo uu aqbalo qofkan shakhsiyadan inuu samaysan yahay dabeecadan inay dabeecadiisii tahay in ay tahay muhiim in la aqbalo dabeecada qofkan uu leeyahay ceebaha uu leeyahay in lagu aqbalo sifada uu leeyahayna oo uu wanaagsanna dabcan in lagu qaato haddaba muuqaalkan muuqaal la mid ah inta aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu